oo su'aal la isweydiiyo maxaan nahay maxaan rabnaa maxaan hor yaalla maxaan nahay waa in laga jawaabo maxaan rabnaa waa in laga jawaabo maxaa ina hor yuurara oo dhibaato ana waa in laga jawaabo kadibna lasoo bandhigo solution xuluul xalal kadibna xalashaa la hirgeliyo iyada oo loo dhan yahay هذه هي التفكير الاستراتيجي وضدك ووين ساس بيسميها ساس بو كيسنجر وحول هذا مريكان كبير يهر waxa ka shaqeyn jirnay inuu kor u socdo oo adduunka wada qabsado imika waxaan ku dadaalaa in maraykanka la ilaaliyo inuu soo dhaadhicin liana quwado kala hirdinaya marka waa inaan awoodiisa ilaalino si uunan u soo dhaadhicin waa tafkiir istiraatiiji kanada waxa la ilaaliyaa rafaahiyada mujtamacu waa mujtamac la koriyay oo gaadhay darajada rafaahiya inay dadku gaajoon ay hore u socdaan sidee loo ilaalinaya laga fikiraa waxa laga fikiraa Israa'iil cadow badan baa inagu meersanaya ku iska dhaadhiciyeen sidee baan iyakana u duminaa annakuna u joognaa Iiraan waxay ka fikirtaa sidee baan u ahaanaa awood dibadda ku fidda gudahana iska ilaalisa dhexdana is haysataa Turkigu wuxuu ka fikirayaa sideen u noqonaa lambar aan dib loo celin karin waxa laga fikiraa sida Soomaalidu maxay ka fikiraysaa Djibouti maxay ka fikiraysaa tafkiir istiraatiiji majro tafkiirka istiraatiijiga jira wax weeyaan waan ka xunnahay waan cambaaraynaa tafkiirka istiraatiijiga jira Djibouti wax weeyaan noo joog ha naga tagin iyo maaragtay haybad la khadraay labadaa baa jirta Djibouti idan istiraatiijiyada Djibouti ka jirta wax weeyaan waa istiraatiijiyadaas noocaasa Soomaalina waa noocaas ma istiraatiijiyad waxaas idan waxaanu imanaa ikhwaani fillah su'aal baan ka jawaabaynaa magaalada Muqdisho sidaad ogtihiin dhammaantiin sidaad ogtihiin Muqdisho waa magaalo taariikhiya Muqdisho waxay jirtaa wax ka badan 1000 sanadood Muqdisho waa caasimad Soomaaliyeed caasimadaha jira kuwa ugu magac dheer waa 3 Muqdisho waxay leedahay political geography siyaasiya oo gaar ah waxa dhex taala badda cas iyo badweynta Hindiya magaalada Muqdisho waxa ay tahay deegaan waxay ku taalaa hawadeedu uu dhadhaxad yahay oo aad u qurux badan oo nolosha nature-ku ay ka hirgalayso Muqdisho waxay ku jirtaa magaalooyinka kobaca bini aadamnimo oo si laxaad la uga socdo filista dhismuhuna si laxaad la maanta uga socdo 2 malyan iyo bad ilaa 3 malyan oo qof baa magaalada xamar kaligeed degan quwad bashariya iyo magaalada fadhida dad kala duwan baa degan waa run dad baa u badan laakiin qabaa'il Soomaaliyeed oo kala duwan iyo magaalada soo dhisi doonto oo deganna waxyaalada ay gaarka la tahay waxa kamid ah Muqdisho kobac tacliimeed baa ka socda dhinacan ka eegay anigu waxa ka socda aqoontii baa kordhaysa walow kam ahaan ay kordhayso xagga tayada maaha tira ahaan jaamacado 10 ka badan iskuulo dhexe oonan aad u badan iskuulo sare oo aad u badan iskoolo hoose oo aad u badan iskoolo gaar loo leeyahay waxa u socda wax aan caadi ahayn baa ka socda Muqdisho waxa ka socda dhaqaale ta'siiriya geeska Afrika oo dhan suuqa bakaaraha la yiraahdo subaxa marka la furo sarifku meeshaas iyo dhaqdhaqaaqa magaalada meesha suuqa bakaaraha ka dhaca wuxuu ta'siiriyaa Nairobi wuxuu ta'siiriyaa Dar es Salaam wuxuu ta'siiriyaa Addis Ababa wuxuu ta'siiriyaa gobolada dhan wuxuu ta'siiriyaa u raadiyaa dhaqdhaqaaq aad u fara badan oo geeska Afrika ka jira marka bakaaruhu waa suuqa aan iraahdo wuxuu noqon doonaa suuqa geeska Afrika amba Afrika oo dhan hagi doona dhaqaalaha geeska Afrika oo dhan waxa weeyaan Soomaaliya noloshiiba u soo noqonaysa waxayna ka soo noqonaysaa dadkiiba doonaya inay noolaadaan raba inay noolaadaan okay arinta iyadoo ay Soomaaliya ka jirto hadaba magaalada Muqdisho oo sida ay wax u socdaan oo dadku ay ta'hiilul hayaat noloshii rehabilitation ay soo sameynayaan ba had iyo jeer ay dhacaysa muhaddidaad waxyaalaha hadidaya amniga Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxyaalada Muqdisho hadida amnigeega security-geega maxaa kamid ah waxa kamid ah waxyaalada Muqdisho amnigeega hadidaya waxa kamid ah habka ay Muqdisho u dhismayso waa inaan fikirno baa waa koow waxa waxyaalada
hadidaya ee dhibaato ku haya amniga muqdisho waxaa ka mid a dadka siday iskugu socdaan aanan control ku hoos jirin si caadiya loo socdo waa arrin hadidaysa amniga soomaaliya gaar ahaan caasimadda waxyaalada hadidaya waxaa ka mid a oo muhadid ku ah waxa weeyaan waa furista ay furan tahay hadday kor tahay iyo hadday bad tahay iyo hadday dhul tahayba ay u furan tahay kulla shay waxyaalada hadidaya waxaa ka mid a tacadud ulwalaa'aat dadku waxay leeyihiin walaa'aad abtirsiino badan dadku waxay amar ka qaataan xarakatu shabaab waxay siiyaan cashuur waxay siiyaan maaragtay iyakaa dhex gala dadka nabadgelyadooda iyaka casiliya iyaka ayaa hadday laba bayc busharo waaweyn isdiraan iyaka kala walaa bay u leeyihiin dadka qaarkoodna dowladday walaa u leeyihiin dadka qaarkoodna dibadday walaa u leeyihiin oo wadano kale iyo walaa u leeyihiin waxa weeyaan waxaas oo dhan tacadud alintimaa'aat walwalaa'aat waa muhadid amniya securityga tamaasuka daakhiliga ayuu keenayaa marka aan rabno annaku oo ah magaaladii muqdisho u fikirayna nabadgelyadeeda ilaa waa caasimadii qawmiga ah waxaa dhacaya in aan garanno inaan horta la imanno tafkiir aan kaga hortagayno waxaan dhacaya tafkiirka markaa soomaaliya maanta yaalla waa maxay markaan dhegeysto idaacadaha markaan akhriyo buugaanta markaan akhristo istaraatiijiyaadka aan dhegeysto sida looga sheekeeyo xataa reer galbeedku markay ka hadleen amniga soomaaliya in badan baan dhegeystay in badan baan wax ka akhriyay waxaa ila soo baxday in ay yaalaan 4 shay oo 4tuba ay qaldan yihiin ta koobaad waxa weeyaan التفكير على العشوائي للأمن إن أمرك أي أمني وحماده أون ليسكو يماده أو لغا فكره إن سكيورتيغا لغا فكره عشوائي مارتي مدحتوي سوغا فكرته رئيس الوزراء سوغا فكره قولada مخابرات سوغا فكران ciidanku سوغا فكره بوليسku سوغا فكره qolooyinka maartay maxaan ku dhahdaa mujtamaca haduu jiraba bulshada rayidku ay sooga fikiraan odayaasha iyo ugaasyada iyo salaadiintu sooga fikiraan culimadu sooga fikiraan waa ashwaay nin basay tahay waa tafkiir hawaayi kaasi waa mid jira ani waxa ila tahay way leedahay amnigu sida maaha adi waxay kula tahay maaha amnigu wuxuu leeyahay khutad la dhigo khutad kale oo badiilul badiil la dhado saddex baa la dhigaa waxa la dhigaa planning laga hortagayo amni xumada mid labaad baa la dhigaa oo ah ka bedilaya hadii ka uu xumaado mid saddexaad baa la dhigaa oo dhado hadii labaduba xumaadaan maxaa bedilaya ABCD baa la dhigaa okay waa ta koobaad waxaa jira tafkiir aani imika maxaa dhacay imikaan fikiraynaa waani imika laxdadan waxay u bixiyeen culimada qaarkood at-tafkiiru lahad lil-amn waa ka carabto kale okay soo sheeg hadii aad ka baqdid qof qarax sameeynaya hadaa waxa sameeyay soo sheeg waxa eeg waa amni lahdi ah laxdada baa ilaalinaya amniga taasina waxa weeyaan waa wax ku xidhan waqti amnigu waqti kuma xidhno Canada qarax kama dhaco laakiin amnigu uu soo jeedaa dawladdu way soo jeedaa shicibku uu soo jeedaa dad kaniisadu way soo jeedaa masaajidku uu soo jeedaa dadka oo dhan waxay ka shaqeeyaan amniga li'anno amnigu uu khusaya qof kastaba waa inuu caawa seexan karo uu bari soo toosi karo hawshiisa tagi karo baskiisa raaci karo kulluna mas'uuluna 'an al-amn dhammaanteen waxaan mas'uul ka dhahay security-gaan mas'uul ka dhahay marka talabaad waa taa arrinta haween at-tafkiir al-infi'aali tafkiirka carada ku salaysan xamar buu qarax ka dhacay waa la wada ooyaa marka baa la dajinaya maxaa loo yeelay hada mush tafkiir istiraatiiji kama wa infi'aali baa dhacda infi'aali ظاهرة صوتية سيستم كا عربت ويان عربت انت عن اسلامك اي عربت عن كبرنا با انتاسا لان انكو waxaan isku laaqnaa الاسلام والعربيه عربت dhaqankeegi baan qaadanay maadaama 30 sano timir ay nasiinayeen wayna carabiyeen hatta aqliyadeena amniga ahayd waxay ka dhigeen systemka noocan oo kale ah ee inficaaliga ah in aan lahayn khutad iyo istiraatiijiyad aan lahayn waxa dhada wasaaradda arrimaha gudaha ee carabtu waa wasaaradda ilaalisa naqaska dadka taa amni ma waa sheegi doonaa dadka nafsana xitaa way ilaalisaa way ka daba tagtaa wala xarata aqliya mukhabaraatiya waa mukhabaradnimo dadka la daba guro la daba socdo tiina waa la qaatay waa la sheegay xamar systemka in la qaatay laakiin ma soconay systemkaasi waxa jira nooc farada at-tafkiir al-amni lil-amni ina security-ga looga fikiro si security-ga arintaasi horay baa loo diiday waxa la yiraahdaa bari baa shir lagu qabtay Kuwait waxa qabatay culimada tarbiyada waxay yiraahdeen
ماذا يريد التربويون من الإعلاميين؟ dadka education ka shaqeeya tarbiyada ka shaqeeya maxay ka rabaan dadka ka shaqeeya warbaahinta su'aasha waxa ka dhalatay su'aal kale ماذا يريد الإعلاميون من التربويين dadka ka shaqeeya iclaamka iyo warbaahintu maxay ka rabaan tarbawiyiinta su'aasha dhaxad baa ka dhashay ماذا يريد التربويون والإعلاميون من السياسيين maxay ka rabaan dadka tarbiyada ka shaqeeya iyo warbaahintu siyaasiyiinta su'aal afraad baa ka dhalatay ماذا يريد الإعلاميون والتربويون والسياسيون من الاستراتيجيين maxay intuba ka rabaan culimada استراتيجيكالka idan su'aashi maxay ku soo noqotay ru'ya istiraatiijiya inay jirto vision istiraatiijiya oo tarbiyada lagu dajiyo tacliinta lagu dajiyo dhaqaalaha lagu dajiyo warbaahinta lagu dajiyo siyaasadda lagu dajiyo ummadda aragti istiraatiijiya leh ayaa najaxda walidaalika waxay dhahdaan al-umamu al-cadiima ummadaha waaweyn تتحدث عن الإنجازات العظيمة waxay ka sheekeeyaan wax soo saarka waaweyn saaka iyo shalay iyo daraad turkiga waxaa looga dabaaldegayaa baabuurkii ugu horreeyay koronto ku socday sameeyaan injaaz usbuuc koor bil koor waxay u dabaaldegayeen inay sameeyeen markabkii ugu horreeyay barmaaya badda iyo biyaha isku xidhaya bariga iyo badda ee diyaarada ka dul doosayaan waxay u dabaaldegayeen qablaha inay sameeyeen madfac qaaradaha ka tallaabaya waxay u dabaaldegayeen ka hor inay fureen madaarka adduunka ugu weyn waxay u dabaaldegayeen inay fureen بريشكا أدونك وين إنجازات عظيمة الأمم العظيمة تتحدث عن الإنجازات العظيمة والأمم الصغيرة ضحية الضعيفة تتحدث عن الأشخاص دتك كشاكيان يعني هبلايو بقرة دي بقر كيو كي وحنا إلى دتك العتي ولا جاي شطاي إنك جيبوتي وقال إن جيل العتي كقبصة خد راح يبقى قبصتين وإن أويان سي أويا روسيس وإن هسا سي وحي وصو سيديسو أم بوصو سيدايو هذه العقليات الصغيرة وإن لا كالي هبل هجوتا كندا جوجا كالي حنكو يردي بناي حق قاتاقا صدق كون وضلا كالي أنا بقول سيرنا وأرض سيدايو هدو ترى عنها لقطة هذه الأمم الصغيرة الضعيفة إخواني في الله تفكير شنادي وقدام بي ومحي وكهلوبا هي التفكير الشامل الاستراتيجي يلا دجيا تفكير شاملة واستراتيجية ومفهوم كأمني قالوا صالحين أمني ومحاطة هي بورطة لقاها الله سكيرتي محوية سكيرتي مقرح بعوايا ما هي قرح مريكا بكرعي أدوك دولة وحوب بدن قرح بكرعي علوصا قرح وكدعي كرا مقالة والبكرعي هل كان كنا لو كدعي فرنسا بكرعي إنجليز بكرعي قرحه أستراليا بكرعي قرحه ودعي كرا لكن هدو قرح كدعي مقالة يرى كتا الله وقبل وطن هرمر قاري كمر دينو وطن كاسي أمليسي هل اسمه قاري لأنه وأرني يرى دعضي أرنتاسي والحلقرة محل وحلنيا وحايا مفهوم الأمن الشامل مفهوم الأمن الإنساني وحلو به إياه يالا أحبابي في الإسلام ولا ليال وحويا مركو إلهي سورة النحل كغورمي قرية وحولي كانت آمنة مطمئنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان انتهوا إلهي النفوس قرية وهجت ومقال وقبل ودولد وحضارة وقل ما حي صفات لها آمنة وأمن سكيورتي مطمئنة ولا دقيقة تقوي دقيقة ويحصلان نول بشقدي سوتها سكول كي سوتها دكتور كي سوتها مارتي مسكيت كي سوتها كنيسة دي سوتها مطمئنة يأتيها وحا ماد رزقها وحا أباهين تدكو رغدا إساقو كالو قولهين وفرة بوحة أو كيمادا من كل مكان أدونك ودنبو كيمادا هذه المفهوم سورة النحل باكا شاكاليسا إلهي مركا وحكا ورمي إني دادك قاركود اسكدو ميان وحاسوك له فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إلهي هد إيا جروح إسرائيل الخوف والجوع مكة لهران الجوع والخوف عبسدا إيا قاجدا إيا عبسدو اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع رسولك إلهي بكنا بدقلي صلى الله عليه وسلم مركا جوع إسلا كان عبسدا بدنا يدا كانت قاجدا ودنك الدقالة كدعان قاجة كدعدا ودنك قاجة كجيران الدقالة كتصعدا هذا ومعادلة عادية جدا إلهي آيات كذبوا حكا كان ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون إلهي وحو صدري والأمن الفكري أمن الفكري رسول بو صدري ويبينيين
إلهي مركا عذاب بكو قاضي يكو ظالمين دادكو انت ينهلين أمن سياسية يأمن دقالة يأمن وإن هلان أمن فكرية أمن إيديولوجيا وإن هلان أمن عقدية وهم ظالمون مركابو إلهي هداد وحا قرطان فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون مركا عنا وحو إلهي نسيي وبوحيي يدو حلالا ومعان عنا أو طيبة أو إلهينا هدنقة أو نعمة إلهية هداتهم كو إلهي عابدية تبارك وتعالى إخواني في الله كوفي عناني كدعو لبدي يكون مركي تاريخ وحيد نيكي أهان جري مذوبايا جمعية قرمها كدحيسا كان جري سكرتيري جنرال كان جري جنرال سكرتيري كان جري سكرتير عام كان جري بارتي نيكاس حقيها جود كاها وحو كجيدي خطبة جمعية قرمها كدحيسا وحو شرحي وحا الله يقانو أمن الإنساني إني بني آدم كو باهيين سكيورتي سوسيال أول واحد جري واحد أمن الدولة إلى دولة الله إلالية حدوديدا هوديدا إيه بديدا waxaa markii dambe la keenay amnul afraad in la ilaaliyo dadka bini aadamka waxani waxa la yiri waxan sax ma aha amnigu inta uu ka balaaran yahay waa maxay amnigu waalid amnigu waa shumuul bari waa insani waa in bini aadamka oo dhan la ilaaliyo markaan istiraatiijiyad la dagaalamaysa gaajada markaan dajino amni baan sameeynaa marka aan sameeynay istiraatiijiyad jahliga la dagaalamaysa oo dadka cilmiga baraysa amni baan sameeynay marka aan dadka u dhisno jidad iyo dikado iyo dariiqyo la mari karo oo baabuurada iyo maartay raadiyada nolosha biniya taxtiya dawladda hoosta marka aan dhisno isku xidhno oo sameeyno maartay shabakatu macluumaat ittisaalaat communication waxaan sameeynay amni baan sameeynay marka aan caafimaadka ka shaqeyno oo dadka labadiiba la sameeyo caafimaadkii ka hortagga cudurrada iyo cudurrada in la baabiyo labadaba marka aan la dagaalano waxaan sameeynay maartay amni baan sameeynay marka aan dadka umrigooga laga fikiro inuu dheeraado oo 70 iyo 75 uu gaaro waxaan sameeynay amni maanta 45 jir iyo 50 jir bay Soomaalida ku dhintaan wixii de rasaas u deysaba العمر المتوقع جيبوتينا شري كوتون iyo 50 jir rag iyo haweenku intaas ay ku dhintaan jumcada qurmaha 2010 bay soo saartay idan waxay taas ku tusaysaa ikhwaani fillah su'aashan aan ka hadlayno amni markuu ka hadlay wuxuu yiri amnigu waa baahida ugu asaasisan ee qofka bini aadamkii u baahan yahay nolosha daraadeed mafhuumka amniguna waa maxay buuri waa inuu qofku ku xasilo meesha uu degan yahay waa inuu garto inuu yahay qof meesha laga lahayn qof meesha loo sheeganayn qof meesha laga ceshanayn qof meesha laga raafayn qof meesha loo diidayn qof meesha ku noolaan kara qof meesha horumar gaarsiin kara qof meesha horumarkeega ka faa'iideysan kara qof meesha qof meeshu ay leedahay هذه العقلية يرى اطمئنان وحصلها marka xasilada maxay ka imanaysaa confiance siqay ka imanaysaa siqadu waa maxay waa confiance waa kalsooni kalsoonidu xaqay ka imanaysaa waxay ka imanaysaa wuxuu kalsoon yahay in ayna ku dhacayn baahi inayna ku dhacayn gaajo inayna ku dhacayn cabsi inayna ku dhacayn dib u dhac inayna ku dhacayn cunf argagixisnimo in laga hor imanay okay su'aashaas quraanka ilaahay tabaaraka wa ta'ala uu inooga jawaabay arkeenay suuratu an-nahl حديث النبي عجيب صلى الله عليه وسلم نبي وحوري عليه الصلاة والسلام قفك من أصبح منكم نكا إنيغا ميدا أو ساكا واغو أبريو يساقو أو آمينا يا آمينا نبات قبا سكريتي هروكو نبات قبا في سربه قريسا في سربه ديغان كيسا في سربه ودن كيسا في سربه دولة ديسا في سربه عالم كيسا ضد بهالكا قارسية العالم كله سرب الإنسان ابن الأرض ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا الوطن وطن هو هالكي ودولكا دولكا وطن كين وي هدي وطن كوردن نبدي كدعي ويدو أوكي ما عنده دراسة الأخرية الجيريا أم الجزائر الجزائر هدي أي كدع عضو قرح iyo maartay dagaal sokeeyo maxaa wadanka ugu horeeyay ee halis galay waa halkii waa Faransiiska haduu Faransiisku halis gala maxaa halis galaya Yurub oo dhan Yurub hadii halis gasho maxaa halis galaya ammaanka adduunka oo dhan waa Algeria hadii wax ka dhacdo idan waxa la gaarsiiyay amniga halka ay timaanaankii rasuulku muxuu leeyahay man asbaha minkum aminan
man asbaxa minkum ninka iniga mida ee ummadda islaamka bini aadanka mida ee ku badbaada sirbigiisa waa kow mafhuumka shaamilka amniga ee insaaniga ee uu ka fiicanaan ka warramay 2000 sano ka hor buu nabigu ina barayaa diintani waan haysanaa mucaafan fi jasadi al-amn as-sihhi caafimaadka jirkiisuna buuxo caafimaad qaba jir ahaan jirkiisu caafimaad qaba okay xumad yar ayaa Djibouti laysay kuma boqolaal qof yani haddaan been iska oro dad ka toka badan maalin walba waxa ku qoran maxaan ku dhahdaa maaratay needka waxa ku qoran inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un hebel baa gooday hebel baa gooy maxay ku go'een 5 6 7 qof 4 3 maxay ku go'een xumadu hagee ka imatay la diraasata huna diraasa ma jirto dhakhtaradu ma fikirayaan liana dhakhtaradu waxay ku fikiraan inay horta dawladdu dejiso siyaasad amniya oo laga hortagayo cudurrada ma jiro okay problem weyn baa waddanka ka jira marka dadkii maxay ku waxay ku dhimanayaan qabuuriga buuxsamay qabuurihii la oran jiray beekaaga 12aad beekaaduus imtala'at an bakrati abiha 7 sano gudiga 7 sano ayay qabuurihii meel qof lagu aasay ayna jirin annaas yamuutun taabuur bay ugu jiraan geerida ilaahay baa laynaya dadka laga dhaaqnaya ilaahay waa looga dhow yahay layntooda gaaja laynaysa cudurra laynaya waxa laynaya ya'si murugo waxa laynaya calaacal waxa laynaya oohin waxa laynaysa meel ay maraan markii waayaan inay iska dhintaan hakada yamuutun kitaab waxa jira dhado al-caalam al-islaami bayna al-hirman wa takhalluf caalamka islaamku dhex yaala xirmaan inay waxay cunaan bahaysan iyo takhalluf okay mushkiladda aan ka hadlayna markaas waa maxay waxaan ka hadlaynaa qofku allaba inuu haysto jirkiisu inuu caafimaad qabo waa security indahu quutu yawmihi waa inuu haysto wuxuu cunayay maalin walbaba hadduu haysto rasuulku muxuu yidhi adduunkii oo dhan baa loo keenay hada huwa almafhuum shaamil lil-amn marka dawladuhu markay fikirayaan dhalinyaradu maxay uga mid noqonayaan xarakatu shabaab maxay u galayaan muxuu qofku u noqonayaa mutadarrif saddex shay buu noqonayaa diraasa anigu aan imika aan wado waxa kamid ah waxa ii soo baxay qofka Soomaaliga ah waxyaalada u keena inuu noqdo mutadarrif xaq jirnimada maxaa ugu wacan saddex shay weeyaan kow al-hirmaan baahida gaajada waxaas oo dhan waa kow laba waxa ugu wacan al-jahl cilmi la'aanta aqoon la'aanta bas qofka madaxiisa laga buuxinayo 2 3 10 6 ayadood inta kale laga mamnuucayo tafaasiirta kale loo diiday ra'yi qura dhageyso aaraada kale ha maqlin aqwaasha culimada ha dhageysanin afkaarta culimada maalta waxa dhaqaa kuwa culimada waxa dhaqaa dunya ee culimada aakhirada dhageyso baa laga leeyahay marka waxa baa la gaari baa laga dhigaya dhinaca faraska laga xidhay laba dhanba baa laga dhigaya meel adduun arkay ma jiro arrinta saddexaad waxa weeye albadaawa والدخول في القفص badownimada dad iska baadiye ah oo maaragtay nolosha ku adkay baa waxa ku dhacay sadamaad xadaariya waxa ku dhacay shock baa ku dhacay argagax ilbaxnimo yaa ku dhacay waxay dawladdu waxay heleen yar oo 60kii oo madani ah markiiba way dhacday tu askari oo wararsan baa imatay markiiba way dhacday waxa uu imatay dawlad la'aan iyana waa la sii wareeray waxa uu yimid wadaado waalan baa mar helay way sii waaleen waxa uu yimid maaragtay qabqabalayaal way wareeriyeen wareer ummadii markaa maxaa ku dhacay yas waa isku mid inuu noolaado iyo inuu dhinto inuu geeriyoodo iyo inuu noolaado labadu way u sameeyeen marka waxaas wuxuu abuurayaa dad wada adag oo wada mutakhallifina oo raba inay wax dumiyaan ولذلك ايها الاخوه qofku inta haduu haysto uu baxaya marka xamar maxaa leeynaya qaraxyaa lagu leeyahay dadkii maanta dadka dhintay walaalayaal dhalinyaro jaamacadda ku socotay macnay leedahay ninka intuu hub soo ururiyay leynaya meelshii baabuurku uu maaratay cashuuraha iyo lagu qaadayay kala beerkii intuu soo joogsado ugu talagalay waqtigii ay dadku dirwada ugu badnaayeen inuu qarax sameeyo هذا التفكير الاستراتيجي للتهديد الامني wuxuu qofkaasi doonayaa wuxuu inoo diidan yahay inaan noolaano wuxuu inoo diidan yahay inaan mustaqbalka aragno wuxuu inoo diidan yahay inaan dad noqono bal wuxuu inoo diidan yahay inaan rajadu inaga baabinaya ciyaal yar oo jaamacadda banaadir ku socday intooda ugu badan oo bas ka buuxay oo habla iyo inamaba leh oo doonaya inay mustaqbal sameeyaan
hooyo iyo aabbo suuqa fadhiyo naftu ka baxdayna ay dhalinyar u soo gasheen buugaan u iibsheen jaamacadda lacag ka bixinayaan oo ay leeyihiin wax noqda si aan annaguna wax u noqono ilmo yaroo mukhadram ah oo ka fikiraya inuu wax isku taro qoyskiisiina wax u taro kuwa soo socdana wax u taro mujtamaciisana wax u taro ilmo yaroo ka fikiraya in nolosha laga hor qaado la qadar jabiyo oo la maartay la qalbi jabiyo oo la jabiyo kuwa saa ku fikiraya wa a'daa wa adu waxay cad u yihiin wadanka iyo diinta iyo dadkaba marka ka hortageegu uma baahno hadal waan ka xunnahay uma baahno waan canfaareynaa wuxuu u baahan yahay in mafhuumka shaamilka la dajiyo arinta cajiibka marka wax way ikhwaani fillah xadiiski waa kaas quraanki waa kaas waaqici waa ka adduunku suu fikray waa ka annaka maxaa inaga dhigay dad si kale u fikira dad markan Soomaaliya joognana ka fikirayo inaan noolaano markaan Djibouti joognana ka fikiray inaan noolaano Soomaaliland ka fikiray inaan noolaano oon iska noolaano inaan ahaano maxaa inaga dhigay limaada la nufakir maxaan u fikir laanahay limaada la nafsuur maxaan revolution u sameyn laanahay la nurid waxaan marrabna maxaan oran laanahay limaada su'aasha wayna isweydiino ولذلك إخواني في الله وحيد هذا الماطع علماء وين أمني خشكية بدون تعليم حقيقي هدي نجي الأقون دبا أمني مجرو أقون تدبتي مركا ومحي وأقون أن أهين أقون تصعب كأوتوما يساقف أنا ملوتمين دكتاتير هدو قفكو أقويان كصعب كأوتوما أقويان ماها أقون وإنكو حريصو كارل ماركس وحورنجري معرفة قليلة تجعلك عبدا تأقون يري وحي كادي أدون معرفة متوسطة تجعلك نصف عبد معرفة أقون ردحادنا وحي كادي نص أدون معرفة حقيقية تجعلك حرا مركز هشيد معرفة دبنا وحي كادي قف حرا كادي يسا إذن لابد من التعليم لبو وحاكم إذا وحيالة قفك بني آدم كسكرتي يسا رعاية صحية إنه قفكو كبقين إنه جرة يكون عضو أو أي كان يعدي كرتو كان يعو أم بأودي كرا محان كورا هذا إن حمدي أم بأيدي كرتا محان كورا هذا إن شبنير أم بمارت على الطاعون واحد مو كذا ماضي إنه كبيع كرو أم بالسيداء أيديس وكبيع كرو وحاس قفكو إنه كحرو لابد من الرعاية وإنه قفكو هيشتو إلى لين عافمات ما عافمات هو وحلا يقانو دكتور كاتجي يقدر كريم بكوغل ليس هذا رعاية هذا تسمى علاج والجدوينية لكن رعاية صحية إن لو إلى العافمات وإن يجرتو أنا أفراد واحد هذا وإن يجرتو قفكم مركو سوقعه إنه كسوقعه جوري ونكسر سكن كريم ما يقولن جوري بلار ما يقولن جوري عيني أنا ما يقولن جوري قصري أماها سكن كريم جوري أقل ما إنه قاروح القرآن سكن لائق ديجان أقل ما قفكو إنه قالي كرو هوله لكلا رجع هوايانك كلا سيحان كران والدك عيالك كلا ديران كران مال تلفزيون يكون داودان له مال وحكوا قرستان له ماركا وين هيستان وحيالده لا دغالم امن حمده كبيتاي امني بان كشكينا بين با شكينا وحيالده waxa kamida damaan xuriyatu ta'bir dadku inay hadli karaan xuriyatu ta'bir waa inay haystaan waa inay hadli karaan sida ay doonaan waxay yiraahdaan waa in laga ilaaliyo qofka kale himaayatu al-insaan min al-insaan qofka ku dilaya waa in laga ilaaliyo qofka madaxa ka qabsanaya waa in laga ilaaliyo qofka ku xidhaya jiritaankaaga inaad adoon noqotid waa in laga ilaaliyo qaanuun waa inuu jiro ka ilaaliyo dawladda himaayatu al-insaan min taqawwur ad-dawla dawladdu waraaba in noqoto waa in laga ilaaliyo wa himaayatu al-insaan in insaanka laga ilaaliyo inuu dawladda dumiyo sabuna kullu hada yahtaaj ila amn waxa kaloo amniga kamida in dadka laga ilaaliyo maxay in laga ilaaliyo waxa loo yaqaano at-tadahwur inay burburto inay dumaan bi'ada iyo environment inay dumaan walidaalika waxay culimadu yiraahdaan amni marka maanta laga hadlayo waa inuu qofku amni financier ah oo lacag haysto waa inuu ala aqal koontada wax ugu jiraan waa inuu wax la soo bixi karo wuxuu bixin karo wax iibsan karo wax gadan karo haduuna haysan amni ma jiro aqligeena ka saarno amni ma sameeyna dadka joonaya waa been weeyaan mukhaabaraad SDS Djibouti iyo mukhaabaraadka xamar ka jira iyo kuwa Soomaaliland ka jira iyo kuwa Ethiopia ka jira la yasnauna amnan ma'a al-khawf ma sameyn karaan amni iyadoo ay jirto cabsi la yasnaun marka la budda min al-amn al-mali qofku inuu maal ahaan haysto labo
amni qidaa'i waa inay dadku waxay cunaan haystaan waa inay raashin haystaan waa inay afka wax gelin karaan waa inay calooshooda soo tiirin karaan laa amna biduuni dalik haddii waxaa la waaye amni ma jiro waxaa loo baahan yahay inay dadku haystaan security caafimaada maaha waraaqad been oo la sameeyo oo dadka lacag laga gooyo oo lacagtaa guryo laga dhista maaha hada kalaam faariq laakiin waa amni sixya oo dadku ay haystaan alamni الشخصي qofku waa inuu shakhsiyadiisu ammaan qabto alamni المجتمعي mujtamac waa inuu kala ammaan qabo waa inay reerka qurac uu ka nabad galo reerka dhagaxna waa inuu ka nabad galo reerka dhul waa inay shucuubtu kala nabad galaan waa inay dad ku noolaadaan salaam ijtimaaci salaam bulsho waa inay ku noolaadaan waa inaa aws iyo khasraj la mideeyo waa inaa ansaarta iyo muhaajiriinta la mideeyo waa in la sameeyo alwatan alum wadan hooye ah oo kullu naas yaciishuuna fiihi walahu wamacahu wabihi wadan dadku ay ku dhex nool yihiin ay u nool yihiin ay maaragtay ay dhisayaan isaguna dhisaya waa in la sameeyo kullu dalik yaxtaaj ila mafaahiimta inaan bedelo yaa loo baahan yahay alamni siyaasi waxaa loo baahan yahay amniga politicalka inay dadku axzaab samaystaan oo xisbigu wuu dhashaaye la oran waan ku ictiraafaynaa khaladada ugu weyn afrika jira waa maxay xisbiga waxa uu leeyahay kaana waan ictiraafsanahay kaana ma ictiraafsanin man acdaaka xaqu lictiraaf qofku markuu dhasho acte de naissance baa jabuuti la siiyaa waxaa la siiyaa shahaadatu lmiilaad uu dhashay uun xisbigu markuu dhasho waxaad siinaysaa waraaqadii dhalmada laakiin ma weydiinaysid maxaa u dhalatay waan dhashay dastuurka dhalaygi waan dhashay khalaas marka waa inay ictiraaftiin inaan dhashay marka adduunka lama arag xisbigaasi muxuu u dhashay ilaa adduunka saddexaad maahine dad baa dhan maraykanka laba xisbi baa ka jira maraykanka boqolaal xisbi baa ka jira laakiin laba xisbi oo dadku ku kala xidhmeen waa inay jiraan boqolaal xisbi laakiin laba unbaa soo akhiiran laa yasixu ila saxiix kanada waxaa ka jira boqolaal xisbi laakiin laba xisbi saddex xisbi waa muhiima adduunku waa sidaa israa'iil waxaa ka jira boqolaal xisbi laakiin afar xisbi waa xoog badan turkiga waxaa ka jira tobaneeye labaataneeye xisbi laakiin shan xisbi waa xoog badan hadihi alxayaat laakiin lama oran karo xisbiga muxuu jiraa kaasina muxuu jiri karwa laa waxaas afrika mu ka jira alamnu siyaasi baa loo baahayay ikhwaani fillah haddaba walaalayaal dadka xamar waxaa laynayaa indhi sheegayaa dadka xamar waxaa laynayaa doqonnimada dowladda iyo xoolanimada dadka madaxda qabaa'isha xakuma oo aanan u fikirayn waxaas aanan ka fikirayn iyaa laynaya waxaa ka mid ah culummada aanan dadka ku tarbiyadeynaya ra'yi qura oon ku tarbiyadeynaya inay jiraan aaraa badan sida kitaabka uu qoray ibn rushd fi lmas'alati aqwaasha aan soo wada bandhigayne qowlun dadka u sheegaya dadka waxaa laynaya ikhwaani fillah waxaa laynaya cadowga dibadda oo aan indhaha ka qabsan karin oo imaaraadka ugu horeeyo kii doonay ha doono kii diiday ha diido kuwaasaa laynaya dadka waxaa laynaya cadowga istiraatiijiga ee ummadda soomaaliyeed dadka waxaa laynaya xumadda jabuuti ka jirta waxaa keenaya waxa weeyaan jaahilnimada aqoonta cilmiyeed aqoonta dhaqaale aqoonta siyaasadeed ee waxaas oo dhan ka jirta waxaas oo dhan baa dadka laynaya ikhwaani fillah marka maxaa la rabaa waxaa la rabaa laba shay oo quraata ayaa la rabaa shayga ugu horeeya waxa weeyaan alxuriya dadku inay xuroobaan shayga la rabaad ee la raba waxa weeyaan in aan la sameeyo barnaamij loo dhan yahay oo aan dowlad ku xidhnayn oon mucaarad ku xidhnayn oo shacbi weynuhu uu leeyahay oo istaraatiijikala inta laga helayo waxaan ku jiraynaa xalaqada mufriqa ah ee aan dhammaanayn insha allahu tacaala dhammaantiin waa mahadsantihiin waxaan naga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu